booliska dalka Indonesia waxay gacanta ku dhigeen nin iska dhigay habeenay oo ku safrayay dukumeentiyada iyo aqoonsiga xaaskiisii cadeynteeda baaritaan inaan iyada laga helin COVID-19 ninkaas oo magaciisa loo soo gaabiyay DW oo horey looga helay COVID-19 waxa uu raacay diyaarad shirkad Ketling ee qiimo jaban oo isaga kala gooshaysay caasimada dalkaasi ee Jakarta iyo magaalada Ternate ee ku taala waqooyi bari ee dalkaasi ninka oo niqaab isku qariyay jirkiisa iyo lugihiisa ayaa u suurta gashay inuu diyaarada raaco iyadoo aan laga shakinin muuqiisa iyo aqoonsigii uu ku dhaafayay balse xaaladdu waxay ka shafantay xilli ay diyaaradu hawada ku jirtay kadib markii mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda uu arkay ninkii uu ku labisnaa labiska dumarka oo sii galaya suuliga diyaaradda kadibna soo baxaya isagoo xiray dharka u gaarka ah ragga ninka shaqaalaha waxa uu arrinkii ku wargeliyay duuliyihii kadibna waxaa la sii wadaageen madaxda ammaanka ee garoonkada magaalada Ternate markii ay diyaaradii caga dhigatay garoonka waxaa saraakiisha garoonka gacanta ku dhigeen ninkii ku safrayay dukumeentiyadii xaaskiisa waxayna ku karantiileen gurigiisa wararka waxa ay sheegayeen in ninkaas loo gudbin doono maxkamadda marka uu dhameysto karantiilka loona baaro COVID-19 fadlan haddii aad ku xusubtay channelka Haykal Production waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto siina share gareyso waadna ku mahadsan tahay la socodka iyo daawashada muuqaalada halkan idin la wadaagno